بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد ورصحافدات كلان إسحاق ورئيسي oo ay isugu yimaadeen mas'uuliyiinta ka soo jeeda gobolada SSC ee Puntland waxa ka soo baxay qodobadan waxaan marka hore tacsi tiiraanyo leh u direynaa guud ahaan dadkii ku geeriyooday magaalada Laascaanood ee gobolka Sool gaar ahaan marxuumkii dilkiisu kacdoonka sababay ee Cabdifataax Cabdullaahi Sangub iyo dadkii shacabka ahaa ee mudaharaadka lagu laayay ilaa iyo haddana leyntoodu socoto sidoo kale waxaan bogaadinaynaa dhalinyarada gobolka ee garatay kana dhiididay xasuuqa baan ee lagu hayo bulshadooda isla markaana garowsaday inaysan u shaqeyn kana sii tirsanaan nidaamka Soomaaliland annaga oo ugu baaqayna inta ku hadhayna in ay ka gilgishaan dhiiga shacabkooda ee sida ku talagalka ah loo daadinayo haddii aanu nahay mas'uuliyiinta ka soo jeeda goboladaas waxaanu bulshada u cadeynaynaa inaanu naf iyo maalba u hurayno sidii looga kor qaadi lahaa nidaamka caadaystay gumaadka shacabkeena sidaas daraadeed waxaanu si buuxda u soo dhaweynaynaa una garab taaganahay kacdoonka bulsho weynta gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascaanood ay kaga soo horjeedaan dilalka caburinta iyo doonista xoog ku haysashada waxaan ugu baaqaynaa deegaanada kale ee Sool Sanaag iyo Cayn inay ka qayb qaataan kacdoonkaas sidoo kale waa in laga hortago wax kasta oo muujinaya jiritaanka iyo kamid ahaanshaha sheegashada maamulkooda sida diiwaangelinta iyo wixii la mid ah waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka iyo ururada gobolkaba inaysan indhaha ka qarsan xasuuqa baan iyo caburinta joogtada ah ee lagu hayo in muddo ah bulshada deegaankaas annaga oo ka xun in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo madasha wadatashiga qaranka oo shirkoodu ka socday Muqdisho ay iska indhatireen guud ahaan xaaladda deegaanadaas oo iyagu ah kuwa markasta u taagan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed taas oo kaliftay dhibta joogtada ah ee lagu hayo aad iyo aad baad mahadsantihiin bismillaahir rahmaanir rahiim arintaas waxay ka dhalan doontaa in maaragtay dacwad caalami ah shaqadina gacanta lagu hayaa maxkamadda dambiyada dagaalka iyo hadii ilaahay yiraahdo loo gudbin doonaa waa crime against humanity qofka xuquuqdiisa asaasiga ah inuu mudaharaado diido waxa mar raba yiraahdo xaq buu leeyahay waa nasiib darro in dawladdii magaca Soomaaliyeed ee ku fadhiday xalay intay statement soo saareen inay waxba ka oran waxa dhibay maamulku waa yimaado waana tagayay aad iyo aad baad u mahadsantihiin guuleysta kacdoonka shacabku ha guuleysto ha aqbalinina diiwaan gelin iyo doorasho midna ha aqbalina codkiina haddaad u ogolaataan way mididaydi gowracaysa ma raba aqbalinina waa mahadsantihiin waxaan ku darayaa runtii arrinka maanta ka dhacaya ee muddada dheer lagu waday Sool iyo Sanaag iyo Cayn dadka degan ma aha arrin loo dul qaadan karo waxa xoolaha geela waxaan ku maqli jiray waa la tolaado markaasay ogolaysiiyaa ilmaha toliin baa lagu ogolaysiiyaa marka toliin laydinku ogolaysiin kari maayo waxyaabaha maanta la wado oo ah aan ku dilay dooro sanaaduuqda la keenaya waxa weeye aan ku dilay anoo ku dilaya misna dooro arrinkaas arrin loo dul qaadan karo maaha midda kale waxaan idin sheegayaa wixii ay ka dhiidiyeen oo hubka ka qaateen bay sameynayaan waxaan cadeynayaa oo sheegayaa in wixii ay sameyn jireen aanu sameyn karno oo dadkani aad sameyn kartaan way lugeeyeen way gaajoodeen waa dhinteen intaba waa yeeli karaa oo dhulbahanta iyo Sool iyo Sanaag iyo Cayn dadka degan waa runtii waa yeeli karaan marka uma dul qaadan karo waxa lagu sameynayo dadkaas oo ay ugu dambayso taa maanta dhacaysa waxaan ku boorinayaa dadka ilaah baa idinla jira anana waa idinla jiraa idinka hadhi mayno haddii aanu bariyo aamusnayn runtii waa hadlaynaa garabkiinaanu taaganahay waa idinla howlgalaynaa isku kaaya haleeya halgankaana wada insha Allah waa guuleysan doonaa maantana waxa muuqata dabayshii caafimaad dabayshii xorriyadeed baa muuqata taasaynu isugu wanaagna haddii la yiri intaasan ku soo gaweynaya aad iyo aad baad u mahadsantiin